بسم الله الرحمن الرحيم داودياشا قيمها بدن لو مركله iyo barnaamijkeeni barashada Ilaahay iyo bisha barakeysan Ramadan waxaan ku soo guda jirnay qaacidooyinkii aynu kaga waramanay magacaanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaanu in badan aragnaa oo guriyeena laga yaabay inay in badan yaalaan waraaqo lagu diyaariyay magacaanta Ilaahay oo leeydi magacaanta Ilaahay waa 99 magac oo tulumiye ka badan karta qaacidadu baynu cadeynaysaa asma'ullahi ta'ala ghayru mahsuratin bi'adadin muayyan magacaanta Ilaahay kuma koobna tira muayyan ah oo ma jazmin karno ma oran karno Ilaahay wuxuu leeyahay 99 magac oo kaliya waxa baynu ku haynaa quraanka iyo xadiiska magacaan ka fara badan 100 iyo dheeraad oo mid kastaba daliilkiisa loo hayo hadaa dhibtarkii ka timid waynu sharaxi doonaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabigiisa Muhammad alayhi salatu wa salam si xadiiska mashhuurka Imam Ahmad ibn Hibban iyo xaakimay soo wariyeen الشيخ أحمد شاكرنا في تحقيق المسند الإمام أحمد وكتل مامي صحيح هي إمام الباني وكتل مامي يسقنا في سلسلة الحديث الصحيح حديث كاسي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام من الجو رمية إيري أسألك إلهي وحن كوجو دي سنية بكل اسم هو لك ما قع كستو أديك كوسكن هذه أو سميت به نفسك الله يقدر نفط هذا كم قعودي أو أنزلته في كتابك أما أنت تكون قعودي نفط هذا كتابك هذا كسود شيء أو كتابك أتسود شيء كترسن أو علمته أحدا من خلقك أما عد كم مخلوقاتك على أبورتي الله وأدبرتي أو استأثرت به في علم الغيب عندك أما هذا دو علمك naga maqan cilmu qaybka aad kula hadhay oo aan anagana soo gaarsiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu isagu la hadhay aanu soo gaarsiin makhluuqaadkiisa iyo anbiyadiisa iyo malaa'ikta uumay cid jazmin karto oran karta waan koobnay ama tiradaasa Ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa taala oo aan bini aadamka soo gaarin ما جرت سيدا درتي waxaan leenahay magacaanta Ilaahay kuma xidhna tira muayyan Ilaahay 99 magac oo kaliya ma laha laakiin 99 ka magac sidee ku soo aroortay bal fiirso xadiiskan hada الحديث rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam leeyahay inna lillahi 99 isma 100 illa wahida man ahsaaha dakhala aljanna hada الحديث wuxuu noo tilmaamaya oo uu noo sheegaya in tirada muayyanka ah ee 99 ka ee kamid ah hada lama oran sifatul hasr looma isticmaalo lama oran magacaanta Ilaahay waa 99 oo kaliya maxay جملة كذا بيسمى نحصاها دخل الجنة أي واحد هي جملة مكملة أو رمي استرس وحي كوري ما هي جملة مستقلة أو سيدة دوم مضح بنان تاسنا وقريب لبعض النوت المامسة إن مجعنت إلهي أنا كوكوبنين إن أي سجاشيهين لكن فضل وكسر ربعة إلهي سبحانه وتعالى مجعنتي سوى حكمة سجاشن مجع أو عدة كوبتا حفتدة دقن جلسة كل قنطة أي جنة جلس من أحصاها دخل الجنة هذا العلماء وحكوا الرمان أو أي شيئان مجعنتنا إنه أرجني أمو كتابة القرآن كدين عكوا قرآن أما يجوا وراء قاركوا قرآن حديث كان لقول لري أما لقول شيء ما هو حويا لفتي كسرنا هذا حبيب كين محمد عليه الصلاة والسلام ونبي محمد النجس وقاربة إلى واحد الله يا مجعنت هاسي حديث كسر ورتي وقاركوا واحد دليل عن الله markii la tatabbucay la raacay wax daliil ma aan lahayn magaca Rashid ba kamida ee ku qoran warqadaas sida culimadu ay tilmaameen Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama ansixin in magacaantaasi uu tiriyay oo uu sheegay 99 ka magac xadiiska suuradaas ama riwaayada lagu soo warinayana waa daciif sida culimada muslimiinta in badan kamidi ay iska daba mareen ama ay sheegeen xadiiskaasi sida mashhuurka ah waxa soo wariyay Imam Tirmidhi markuu Imam Tirmidhi xadiiska uu soo wariyay ee magacaantii sheegay ee wuxuu yiri hada xadiithun gharib hadathana bihi ghayr wahid عن صفوان بن صالح ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح وهو ثقة عند أهل الحديث مركا علماء ويكور رمين ويتلمامين شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أي وحولي تعيينها إن حديث كاسي لقول له مقعان إلهي و99 مقع وسيدا الله أيما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلمة جماعة باتفاق أهل المعرفة بحديث سيدا يسكوها فقسيهين تتكأ معرفة أولى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم مر لبعض ابن تيمية وسير راعي وحري الوليد ذكرها عن بعض الشيوخ الشاميين كما جاء مفصلا في بعض طرق حديث كما كدرق يسلح الراعي وليد باو حكسو نقلي علماء دي الشاميين تها او علماء دي بس شيخت مركا حديث كسيدي لو سورني والله قاطي تدليس بعد العي واستحقلين سيد ابن حجر وتلمامي دول مركا في الفتح ابن حجر وحوري ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليس والاحتمال للإدراج إدراج تدليس وسمي استحجلين وحان السلهين أما اللي بحديث أما حديث يو هذا القف كله أما حديث يو فعل كله يتمركز حديث كله مركب علماء دوية المامين إن أرنت النوع عاصي آية محمد صلى الله عليه وسلم كان صحين ولله الحمد علماء قديما وحديثا وحي تتبع كسميين مقعانت إلهي كسار وري في القرآن الكريم هي في السنة المطهرة علماء المسلمين تقال كم إذا وحي جارسيين أو يتريين مركي تريد مقعانت إلهي سبحانه وتعالى إني جارسيين بقول
iyo xooga xadiid ism oo kamid ah magacaanta ilaahay subxaanahu wa tacaala ciddii u baahata ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u fudaydiyo waa ay raadsan kartaa mid kastaba isagoo daliilkiisii leh oo sheegaya in magacaasu yahay magaca ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii aynu ilaahay ugu yeedhno magac aan daliil lahayn dee qaacidadii horeynu soo qaadanay waxay ahayd in magacaanta ilaahay yihiin توقيفية مر هدي أنو شاقني إن أنا صحاهين إن مقعانتها لسردي أنا نبي محمد كسقنان وحقلط إن تلاحظوا كواسوا مقعانتي إلهي أو يدو قاركود أي دعي كرتسد علماء بيت المامين إن أنا واحد دليل أهل حي مر هداني الدليل هاي معناه هذا واحد كده جنت هاي إلهي واحد يقول يا دعمات كم مقعودي وحنو نفتيس كم مقعابين أما النبي محمد أنا كم مقعابين إلهي خيرك وناجاه نوافق شيء إن هسيرك سوق بجبيننا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وبالله التوفيق.